soo dhawaada ninkan cunug yar oo ay xaaskiisu dhashay intuu soo qabto sanduuqan ku rida hooyadii cunuga dhashayna waa tan iyadoo isku dayayso inay ka celiso laakiin uu ka awood badina canugiyo sanduuqa ku xiran waa kana isagoo webiga raacsiinayo xaaskiisina uu qaatay wiilkan yarka oo waxa dhacaya kor uga jeeda wuxuu u soo ordaa dhinaca webiga waa kana isagoo isku dayayo inuu sanduuqa webiga ka soo saaro xoogaa kadib uu ku guuleysana cunugina uu ka soo bixina wuxuu bilaabaa markii inuu ninkii xaaskiisii daba raaco dhinaca kale midkii basaxiirka ay xaaskiisii sida u soo wada qolkaan soo gelina wuxuu ku dhahaa cunugaas atiishkaagii oo dhan uu qaatay laakiin hadda kadib waa ka nasanay qolkii intuu dhinaca sare uga xiro furiisa hore u qaadana maadaama uu basaxiirku askari yahana wuxuu wacanaa saldhigga wuxuuna dhahaa halii soo diray askari si qaasa u ilaaliyo gurigeyga laakiin wiilkii yarka ahay oo cunuga sida wuu maqlaaya markii uu askariga dalbanaya markii uu baxo gurigiisa usoo dabamareyna hooyadiina waa tan ahay aad ay u farxaysaa kadib markii aragtay in canugeedii dib loo soo celiyey wiilkii waxay ku dhehaysaa waa kuu soo laabanahay wax yar meeshaada iigu sii sugaa ka tegin xoogaa kadib waxay soo laabanaysaa iyadoo sida baalka qashka lagu goro xarka ay kusoo xirxirtay markii ay dhulka soo dhigtay wiilka waxay u sheegayay inuu cunuga yarka meesha kusoo dhex rido markii canuga yarka meeshii lagu soo dhex riday waxay isku dayaysaa inay dhinaca sare usoo qaado laakiin markii aragtay in basaxiirka uu soo laabtay dhulkii kusoo celinay wiilkii yara waxay u sheegay inuu cunugeeda uga sii taxadaro inta ay imaanayso odayga guriga waxa uga soo dhex tagaa u maleynaa guduhu u soo gala labadaana markay arkeen inuu xaroodo meeshii isaga cararayaan midkaan siduu canuga u soo wada wuxuu u keenaa midkaan kaloo qashka ku jiifa oo ay derbi jiif isla yihiin isagoo naxsano midka yarkaa wuxuu weydiinaa halkay ka keenta cunugan qashka ma ka soo heshay mayuu ku dhaha cunugan anigaa soo badbaadiyey hooyadiisna hadda dhibaatay ku jirtaa ina badbaadina waayana keen isagoo arrintaas ka cagajiidaya intuu soo kaco wiilka wuxuu ku dhaha anigoo xaaladdeena sidaan tahay miyaa dadka caawi karnaa haddii aan caawina xitaa sidaana sii ahaanayna derbi jiifyada laakiin wiilku midkan wuxuu ku dhaha qorshe fiican oo ku badbaadi karnaa noo hayaha migu raaci xoogaa oo diidiida laakiin ugu dambayn wuu ka ogolaana waxay bilaabayaan marka qashinkii agtooda yaala inay dhar ka baarbaartaan waa kuwaana marka iyagoo dhammaantood gashtay dhar madmadow ah maaqan madowgu wuxuu ka caawinaaye midkaan maqasow intuu soo qaato saaxiibkiisa wuxuu ka jaraa timo uusan ayaantan iska jarin weliba isagoo diidan maadaama uu basaxiirku askari wacday midkaana wuxuu soo gashanaa dharka booliska xoogaa oo albaabka gargaraacaya ugu dambayn marka laga furo basaxiirku salaama waxaa weydiina adigu yaa tahay mabuu ku aqaani askarigii aan dalbado maxaa liigu soo diri waayey wuxuu ku dhahaa horta mudane marka koowaad askarigii aad dalbatay dhaawacaa soo gaaroo lugtow ka jabay marka xigta aniga waxaan kuula shaqay doonaa sida ugu wanaagsan wax walba oo aad ii dirtana su'aal kama keeni doono wax walbana waxaad arki doontaa shaqadeedu markii ay dhammaato basaxiirkuna waa kanaaye midkan hadalkiisa wuu ku qancaa wuxuuna u sheegay haddii uu si fiican ula shaqeeyo inuu bilad siinaayo kadib labadoodu intay is soo raacaan waxay imaanayaan qaybta sare guriga labadii kalena waa kuwaan ahe iyagu si qarsoodiya guriga u soo galay qaybta sare imaanayaan midkan wuxuu soo baxsanaa taleefonka si uu u duubo wax walba oo meesha ka dhacayo odayguna askariga wuxuu ku amraa inuu xaaskiisa gacmaha iyo afka ka xirxiro canugii yarka iyo wiilka waa kuwaana iyagoo shaqadoodii duubitaanka haysto gabadhii markii ay gaariga saareen basaxiirku askariga wuxuu u sheegaa meeshii uu gey lahay gabadha isaguna askariga maraacaya wuu ka soo haraa wuxuuna rabaa inuu seexdo kuwaan oo guriga maanta dhan ku dhex dhuudhuubanayeen ugu dambayn bannaankay uga soo baxayaan midkan waqti dheer ay ku qaadanaysaa gabadha inuu fahansiiyey inuusan askari ahayn oo keliya raba inuu badbaadiyo waxay fahmaysaa markay aragtay inay cunugeed yarkaay dib ugu keeneen waxay u sheegay inay wax fiican u sameeyeen abaalkoodana aysan gudi karin wiilkaana wuxuu ku dhahaa muuqaala ka duubnay askartuna way soo socdaan waa ku wareejinaynaa xoogaa kadib basaxiir isagoo hurdaya hurdadiisa laga soo qasay waa kana isagoo la wado muuqaalkan intaasoo ka ekaaya hadda halkaas soo gaarta leegnosa